والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين Soomaalidu waa dadkii Quraanka waa weer sharaf iyo karaamo badan waxaana rumaynayaa sida xufaadda Quraanka Kariimka ee Soomaaliyeed ay sanad kasta uga soo dhalaalayaan isla markaasna uga soo muuqanayaan kaalmaha sare ee baratanada qowlka Eebbe maalmo ka hor ayay gabadh Soomaaliyeed ku guuleysatay kaalinta koowaad ee tartanka Quraanka Kariimka ee caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta muddo ka hor sidan oo kale tartamo ka dhacay Mareykanka Qatar iyo dalal kale أي Soomaalidu iska xaadirisay kaalmaha sare والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون haatan waa Cabdulaahi Bashiir Cabdi oo kaalinta koowaad u galay tartanka Quraanka Kariimka ee caalamiga ah ee dalka Kuwait Cabdulaahi wuxuu ka socday dalka Mareykanka isagoo ku guuleystay صدق جزء القرآن الكريم كه مع تجويد كيسا كسكو عبد الله ومثلي مريكنكا ترتنك وحي صومالي كجش كالنتا أفراد ليبيا كينيا يضلال كلو أفريقيا أيا ينهي عليك المسرع حرونتا تبيان وحي آد وقفر أحسن تهين عبد الله بشير عبدي وكوكو ليستو كالنتا كواد إساقو مثلي يدالك مريكنكا فردقا كوي تبناد ترتنك القرآن الكريم كه كويت وحانو جعلناهي inaanu si weyn ugu hambalyeeyno waa guul u qalmo sidaas waxa lagu yiri qoraal goordhaweed ka soo baxay xarunta Tibyaan ee Minnesota ee Soomaalida Cabdulaahi ayaa kaalinta koowaad ku guuleystay 4 tartan oo Quraanka Kariimka uu ka qayb galo markana waxay noqonaysaa markiisii shanaad waa tusaale ku dayasho mudan dhammaan ardada Soomaaliyeed ee xufaadda ah marka loo eego tirooyinka rasmiga ah tartankan caalamiga ee Quraanka Kariimka ee Kuwait waxa ka qayb galay in ka badan 100 xufaad oo ka kala socday 7 wadan oo adduunka ah guuleysta Cabdulaahi waxa lagu abaalmariyay 152,000 oo dirham oo u dhiganta 489,816.963 oo dollar waa lacag ku dhow 1 milyan barkii ama 500,000 oo dollar hadalhaynta ka socota baraha bulshada Twitter-ka waxa ay tahay in Soomaaliya iyo Yemen oo iyana ku guuleysatay qiraa'ooyinka kala duwan iyo Liibiya ay tartanka Quraanka kaalmo sare ka galeen iyagoo dalalkoodu la og yahay xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka Carabta hadal haya ayaa leh dadka barwaaqada ku jira ayaa ilaaway Quraankii kuwa kalena way xasuusan yihiin adiga maxay kula tahay والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون